السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان أحسابتيدا إهلديدا مقالنيسا قرابة إن والبوالين السلام يا ما أنتوا معنين قميصة بشو حوي لبضي أبريل سنة لبضي كوني لبعتنك وهبين ووقت الدنبواي إن شاء الله وحرجيني أفلين كان أنا بري اللي يصدره هو جماعة دي العيدمو waxaan rabay dhowr waxyaalood yar inaan ku taabto wali waxaan ku jirnaa wacyigelintii coronavirus cajalad baan sawirro yar baan idin dhexgelin doona haddii ay macquul noqoto cajaladu aysan nagu dheeraanin maanta waxaan tegay meel ay Soomaalidu maaragtay ay leedahay inaan saaxiibanahay meesha iska lahaa ayaan ugu tagay dano ani isaga naga dhaxeeyay marka sida caadada ahayd waxaan afka ku watay bahashan maradan yaro afka la saarto oo suuqyada laga soo iibsaday marka mid nooc kale taan watay adigu ala kulli xaal meeshii maqaayad bay iska ahayd adigu dad 40 ilaa 60 camal Soomaali ahba adigu qiyaastii ku wada jirtay meeshaas marka waan galay dad qof meesha laga yaqaan magaalada laga yaqaan oo anayo dadkii baan salaamay adigu gudahan sii galay qolkii xafiiska galay waa la weydiiyay markii intaan sii socdo xilli war maxaa dhacay maxaa maanta markaas waxaan iri war naftayda mas'uulka ahay maartay oo anaga naga baqaysaa bay yiraahdeen marka waxaan ku yiraahdee waxa laga yaabaa inaad idinku yani anigu muxuu ahaa aan jiranahay marka idinka xataa inaan idin dhowro weeye marka waan ka sii socday hadalkii ma sii badan qolkayga galay yarkii baan adigu cabaar wada sheekaysanay danheynii baan soo kala dhamaysanay soo socodkii markaan soo baxay ayaa albaabku waxay taagnaayeen meeshan xogaa iska cariiri way albaabka markaan albaabka saa uga soo baxay baa kuwa aan isku aragnay orayaasin maxaa ku dhacay markaas saxaare waxa ma jiraan caadi weeye waan maartay naftaydii baan maartay badbaadinaya marka wiil yarna ma aha nin weyn macnaha dhalinyaro ah oo adigu qiyaastii 7 ilaa 30 u dhaxeeyo weeye dhankaygan midig buu iska taagnaa aniguna waan ka soo baxo dhankaas baan u sii socday marka ogaan buu maaragtay uu yaqaan anigu dusha san ka aqaan aqoon dheeraad uma leeyahay laakiin uu qofacay markaas intaan xoogaa yaabay baan talaabo intaan hore u sii qaaday waan dib u soo eegay marka ma rabin inuu intaan soo jeesto aan ku neefsado meesha uu qofacay lacala haduu jiran yahay marka waxaan ba ka arkay maaragtay inuu ay ka ahayd dib macnaha ninkaaniit muxuu soo gashtay ma garanaysaa isaga wuxuu ka faanaya waxayba la tahayba waxaan la xiranayaba inay tahay wax overdrift macnaha wax oo iska yaal ah istustus ah bay ka tahay isagu umaba haystaba cudurkan inuu dilaayahay kuma baraarugsana yani waxa garanaysaa xilliga waqtiga aan tagayna waxay iska ahayd adigu waqtiyadii rawaxaadii iyo meelahaas ma garanayo waxa uu meeshu ka yimid ala kulli xaal inaan ku mashquulay isaga ma doonayay laakiin falka uu sameeyay baa waxay ahayd wuxuushnimo waa badow weeye waa yani waxa jira waxyaalo lagu ciyaaray iyo waxyaalo aan lagu ciyaarin qof naftiisiiba u baqaaya oo isu soo xirxiray oo meesha socda inuu yani wanaagsan tahay inuu yiraahdaba ahayd macnaha inuu xataa ku ciyaara ma ahayn anigu ma qabade ma ogi macnaha inuu cudurka qabay in kala ma sheegi karo ilaa cudurkan jirka oogada kama muuqdo wax dusha laga arki karaa wax gudaha jirka bini'aadamka ku jira marka dad noocaas ah baa jira dadkii wali meelihii la isugu imanayay iyo fareenadii iyo Soomaalidu wali meeshii bay dhooban tahay isuma haysato maaragtay inuu Soomaaliga wax ku dhici karo macnaha taxadir ma jiro wallahi maanta markaan aan arkay meesha aan tagay waxaan iri war dadkan aad 24 saac waqtigaagi aad gelisay oo cajalada u sameey oo filmaan u sameey oo qoraallo u qor oo groupyo Facebook u sameey oo inta ka wacyigeli macnaha dad wax qaadanaya ma aha aniga inta igu xiran badankood waa dad wadanka la qabsaday waa dad macnaha luqadii yaqaana waa dad macnaha naftoodii iyo naftii ehelkoodii iyo dadkoodii wax taray way laakiin dadka macnaha dhalinyaradaas meesha fadhido kaleeto iyo kuwa iska qoslaya 24 saac iyo kuwa kaleeto meel kaleeto fadhiyo intuba anigu lama xiriiro marka wacyigelinta annaga aan wadno
iyagu ma gaarayso marka ma garanayo wallahi talaabada dambe aan qaadi doono filinkan kadib talaabada dambe aan qaadi doono ma garanayo meel iyo wax marayna iyo waxaan markaa aad baan disappointed aad baan maaragtay uga noqday disappointed aad baan maaragtay qalbigaygu macnaha uu isu dhimay because qof soo jeedo ayaad wax u sheegi kartaa laakiin qof aan kuuba soo jeedin macnaha maanta oo dhanba digrida haddaad rabto qof wax kaa dhageysanaya ma laha markii aan maaragtay snapchat-kayga arrinkaa ku sheegay ayaa dad snapchat-kayga fiirsaday baa isoo wacay adigu 3 qof bay ahaayeen inta kale qoraalle ii soo qoreen laakiin dadka caadi la soo hadlay 3 qof bay ahaayeen marka qof 3 qof ka mid ah ayaa waxa uu ii sheegaya waxaa jira qof uu qofkaasi yaqaano oo cudurkiina qaba oo waliba astaamihii cudurka uu ka muuqdo oo de xumadii ay hayso oo muxuu ahaa qofacaya oo dhadhankii iyo wixii xataa ay ka tageen oo yani calaamadihii oo dhan haysta ba intuu baxay buu kiniini intuu cunay buu taxi wada waa taxi driver macnaha taxi buu wataa يعني وإن شيء يا مقالة وحالي هذا مش هذا لا يجشى قفك وبرلين أيوة قف كاسيتي تاكسي كودا يعني قف كاسيتي وقعد سينكرا ضفر بدل من قف كنا فرط نحن أنه وجرت وأنا شاقنا عندنا ورنين كان أنا قف كان أنا لقى قبته because قف كاسيتي يعني مو حتى عذر كان السجع هي إنه دلاية هي oo qofkaasi yani xabadii gacanta ku hayo oo qofkii uu qaadsiyo uu nafta ka qaadi karo oo dili karo hadhowna isaga sabab u ah because isagoo og ayuu intuu baxay uu taxi fariistay kaniiniyo cunay markaas uu dadkii ku kaxeynaya oo dadkii ku wada marka wiil baan la qaybsaday waxa ay warniyo arrinka noocaas ah dhacay aniga iskama soo boodo sideeda caadiga ah macnaa wax markaan maqlo waan u fadhiistaa waan meelaha weydiiyaa waxa ay raadaan war waxa maxaa ka jira si wax u ogtiin waan hubsadaa macnaa so marka dhalinyarada kamid ah dadka aan saaxiibada la ahay baan waxaan ku yiri warniyo waxaasi tibaan aan maqlay maxay ka tahay markaas wuxuu yiri war waad waalan tahay war meeshaas kaliya ma ahay magaalada Youtube aan kula deganahay bay takaasida ka wadaan oo iyagoo xanuunsan anigu aan aqaan magaalo kastana way buu yiri iyaguna waxay ku anducoonayaan yaa biilashayda bixinaya haddaan 3 toddobaad fariisto guriga haddaan fariisto yaa biilashayda bixinaya biilashaada waxaa bixinaya fashaakirinkaas haddaad tiraahdo waan jiranahay fashaakirinkaasa ku siinaysa lacagtaada yani qofka hadduusan aqoon lahayn oo uu dadkii macnaha uu dilaayo wareer waayo ma garanaysa saan wax ugu sheegna ma naqaano absolutely ma garanayo waa ceeb arrimahaanaytan hadday intay soo baxaan jaraa'idyada ay aadaan ceeb kaloo cusub bay noo noqonaysaa intii hadda nalaga maqlay oo dadka ay maqleen nagu filan laakiin tan hadday dibadda soo aado waa khalaas xataa warshaqooyinka dambe xataa nalama siinayo macnaha qof kasta tallaabada aad qaadaysid waxay consequence u noqonaysaa dadka kaleeto oo adiga waddanka kula nool oo kula qowmiyadda ah bay waxay u noqonaysaa caqabad bal nimankan tagaasida ah oo dhowrka oo magaalo walba jooga oo la sheegayo oo og inay cudurka qabaan haddana intuu taxi fariistay dad fayow taxigii soo raaceen alaabtoodii u qaadqaadayo qofaca isku celcelinaya ama bahashiri raxyada cabaya ama ma garanaysaa qofaca dhahayo oo qofaca isku celcelinaya oo tagaasidiina wada ay basaski yani walaalayaal maxaan sugaynaa war kuweennii xoogaa caqliga u furnaa oo maskaxda u furnaa haddii ay intaas sameeyaan maxaad isleedahay cudurkan markuu waddankii Soomaaliya tago oo aanan fashaakirinkaas iyo maaragtay aysan lahayn hay-ado kaleeto lacag siiya soo kuwaasna ku dhaqaaqi maayaan de Soomaali haddaynu nahay de annaga baaba iska dhigayna mar labaad awal qoryaan isu adeegsanaa haddana cudur baan isu adeegsanaynaa wallahi been idin sheegi maayo waa khalaas way waxaanu noqonaynaa dakam way wal malakul safan samahayn saas buu naga galaya baabah way
waxaan ku dara ma aqaan caawo yani waxa way caawo waxa way waa intii yareedo hawada energy-ga ay ugu jirtay xataa way iga baxday wallahi way iga baxday ma sha Allah dad fara badan oo wanaagsan waan aqaanaa laakiin dadka wanaagsan oo aan aqaano dhibaato nooma keenayaan mar walba waxa dhibka noo keenaya waa inta xun way inta xun ba af dheer iyaga la maqlaa iyaga meelaha jaraa'idada lagu qoraa wali ma aragteen jaraa'idada qof wanaagsan qoraay ma jirto waxa xun baa la qoraa waxaas xunna hadhow cunsuriyiintii baa ka faa'iideysanaya waxay noo noqonaysaa caqabad hor leh annaga caruurteenna war 3-4 jiil oo dambe xataa jaraa'idada internetka ku jiraan hadhow markii saa Soomaali loo garaaco fataq bay soo leeyihiin wax kasta xun please Yasin Abdullahi baa la yiraahdaa waxaan deganahay magaalada Göteborg dalka Sweden waad mahadsantihiin inaad dhegeysateen nabadgelyo